السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا walaaleyna qiimiga badan oo channelkeena Zack Multimedia haddii ay tahay marka kugu horeysaad YouTube channelkan aad soo booqatay magacaygu waa Zakariya Axmed waxaan halkan aan ku soo bandhigaa arrimaha multimedia iyo sidoo kale product review maanta muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay mowduuc aad iyo aad u muhiimsan kaasi oo ah waxaa jiraan walaalo fara badan oo barteen muuqaal sameyn ilaa iyo hadeertaana aanan helin goob ama meel markaasi ay ka shaqeeyaan oona nolol maalmeedkooda markaasi ay ku dibiraan runtii waxaan rabaa muuqaalkani inaan tala aad iyo aad u muhiimsan inaan ka siiyo walaalahadaasi maadaama aan ogahay dad badan oo aniga hadda ka shaqsi ahaanteeda YouTube channelkan ku xiranna inay markaasi u baahan yihiin taladaasi waayo waxaa jira dad aad iyo aad u yaqaanaan muuqaal sameynta laakiin aanan weli shaqo aanan helin laakiin waxaan rabaa taladan maanta haddii aan ku siiyana inaad aad iyo aad ugu faa'iidi doontid ugu hore marka waxaad u baahan tahay waxaad soo baratay muuqaal sameyn softwareda kala duwan ayaad markaasi ku soo baratay midna maanta waan ku ogeysiinayaa oo ah tusaale ahaan oo kale haddii oo maanta softwareda yaryar aad muuqaalada aad ku editing garayn karto isku day inaad softwareda sare oo top 10 ka ku jiraan markaasi inaad u soo gudubto waayo shaqooyinka hadda inta badan waxaa lagu qabtaa softwareda sare waayo haddii maanta aad dhahdo goob shaqo ayaan tagayaa waxaan muuqaalka ku editing garaynayaa telefoonkeyga taasi dabcan waxaan filayaa inaan laga yeeli doonin oo muhiimna ay tahay inaad taqaano sida computerka loo adeegsado iyo sida markaasi computerka wax loogu editing garayo marka haddii aad ka mid tahay dadka softwareda hoos wax ku editing garayn karaan fadlan isku day inaad softwareda sare inaad u soo gudubto taasina wax badan ayay noloshaada ka bedeli doontaa markaan u soo gudbo mowduuceena maanta marka maxaad u baahan tahay marka sideen ayaad shaqo markaasi u wanaagsan aad u heli kartaa ugu hore marka waxaad u baahan tahay kaliya in aad soo bandhigto xirfadaada sidee ayaad ku soo bandhigi kartaa maanta muuqaal sameeye ayaa tahay oo waxaad taqaana sida muuqaalada loo tafatiro qaladaadka loogu saaro codadka loo hagaajiyo iyo sidoo kale markaasi color grading sida colorka loo saaro muuqaalka aad si wanaagsan ayaad u taqaanaa marka waxaa muhiim ah marka koowaad inaad xirfadaada aad soo bandhigto waxaa laga yaabaa inaad xirfadan aad xiiseynayso waxaan ku leeyahay social media ha ku soo biir waayo social media markaad ku soo biirto waxaa marka koowaad kugu dhalanayso marka sidaan oo kale aad rabto inaad isku soo bandhigto waxaa muhiim ah marka koowaad inaad camera aad hesho haddaadan heli karin telefoonkaaga inaad isticmaasho waa inaad nalal aad heshaa waa inaad sidoo kale aad computerka aad wax ku editing garaysaa waa inaad cod ka saxda waxyaabo tiro badan ayaad baran doontaa marka muhiimadda waxay tahay inaad xirfadaada aad soo bandhigto xirfadaada marka maanta meesha ugu fudud aad ku soo bandhigi karto waxay tahay barta TikTok-ga waayo bartaas waxaa laga yaabaa in dad badan oo customer fara badan inaad ka hesho marka xirfadaada waxaa muhiim ah inaad ku soo bandhigto dhankaas iyo TikTok-ga maadaama dadka inta ugu badan maanta ay joogaan dhankan iyo TikTok-ga haddii aad mustaqbal ka leedahay dhankan social media waxaan kula talin lahaa inaad YouTube channel inaad furato sidoo kale Facebookna iska furo wax dhibaato markaas mala laakiin inkastoo wadanka oo xoogayr caqabad dhanka lacag sameynta ay ka jirto laakiin YouTube-ka waa iska nadiif marka haddii marka dhankan iyo social media aad mustaqbal ka leedahay dhankan labadaasi meelood iska dhis waxaad iska dhistaa kow dhankan iyo TikTok-ga sidoo kale dhankan iyo YouTube-ka muhiimadda marka aan muuqaalkan aan kugu soo bandhigayo ayaa waxay tahay inaad xirfadaada aad si wanaagsan aad ugu soo gudbiso dadka waayo taasi waxay kaa caawinaysaa in markaasi dad fara badan aad sidaasna ku hesho laga yaabo marka su'aal inaad isweydiiso muuqaalo markaasi oo dad oo iska soo duuban ma heli karo maxaa adiga kuu diiday markaasi inaad adiga muuqaalka aad iska soo duubto aad mobilka iskaga soo duubto ama camera aad raadsato oo aadna sidaas iskaga soo duubto taasina waxay ku horseedi kartaa wado markaasi aad jeclaan lahayd inaad noloshaada aad ku dibirto waana ku huwa haddaad tilaabooyinkaas aad soo qaado aad iyo aad ay kaaga caawin doonaan run ahaantiina platformskan waxyaabahan aad ku soo gudbinaysana waxaad ogaanaysaa marka ugu horeysa in ay ku noqon doonaan CV waayo berika maalin markaad goob shaqo aad ka doonato waxa ugu horey lagu weydiinaya waxay tahay hore ma ugu soo shaqaysay xirfadaani oo khibrad ma u leedahay marka maanta inta ugu badan waxay tahay dadka waxaa lagaga baahan yahay kaliya inay khibrad markaasi u leeyihiin
barnaamijkaas markaas ay adeegsanayaan ama muuqaalada ay ku sameynayaan. Marka waxaan kula talin lahaa waxay tahay inaad hadda portfolio-gaaga aad dhisto oo aad shaqooyinkaaga kala duwan aad ku qabatayna inaad dhanka social media aad ku soo bandhigto wax badan ayay kaa caawin doontaa. Marka eeba idinkii waxaa idin rajayn doonaa inaad sida ugu wanaagsan aad ugu soo gudbin doontaan dhankan iyo social mediaha. Marka maanta muuqaalkan kooban ayaan jeclaystay inaan idinkula wadaago. Haddii aad videogan ka faa'iiday fadlan la garee lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu yara faa'iidaystaan. Haddii aad noogu cusub tahayna noogu soo biir adigoo taawanaya calaamadda subscribe-ka kadibna furanay gambaleelka si ay kuu soo gaaraan muuqaal walbo aan soo gelino. Waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaaga tagi doonaa sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa inoo muuqaal kale. guuleysta. Maca assalaama.